afar waxyaabood aad samayn karto kuwaasoo keeni doona gacaliyahaaga inuu aad kugu xiiso adiga. Gabdho, waan ogahay marka aad qof jeceshahay waxaad in badan jeclaan lahayd inuu gacaliyahaaga adigoo kaliya kaa fikiro waqtiga badankiisa. laakiin maxay kaaga taalaa qof inuu markasta kuu xiiso aad bay u adag tahay, ha sababto mashquulka adduunkan ka jiro ama waxyaabo kaleba. muuqaalkan waxaan kugu sheegi doonaa 4 waxyaabood aad samayn karto oo keeni doona gacaliyahaaga inuu aad kugu xiiso adiga. Number 1. ka fogow isaga. waxay u muuqataa waxaan la qaadan karin soo ma ahan, balse ka fogow isaga. waa sida ay dhahaan, qofna ma yaqaan waxa uu haysto ilaa uu ka lumiyo waxaasi. haddii aad tahay qof maantoo dhan wacwaca ama la hadla isaga, sideed ku siin doontaa fursad uu adiga kugu xiiso? waan fahansanahay ma fududa qofka aad jeceshahay inaad ka fogaato, laakiinse taasi waxay sii doontaa qofka aad jeceshahay waqti ku filan oo adiga kaaga fikiro. Number 2. naftaada mashquuli. noqo qof mashquulsan. ninka ragga ah ma jecla gabadha aan xiisan waxa ay sheegto. raggu waxay raadsadaan gabdhaha xiisaha leh, soo marka samee wax un noloshaada. marka uu isagu ku soo wacana u sheeg waxyaabaha aad soo qabatay, soo aragtay ama soo akhrisay. tusi inaad gabar xiiso leh tahay. tusi inaadan ahayn gabar waqtigeeda dhan ku lumisa taleefankeeda. xiiso badan ayuu ku qaadi doonaa isaga. wuxuu rabi doonaa inuu ogaado maalin kasta waxyaabaha kale ee xiisaha leh ee aad qabato adiga. Number 3. u soo qaato xusuusaha ama waxyaabihii ugu fiicnaa ee aad labadiina isku soo samayseen. marka aad fursad u hesho inaad la hadasho isaga, waxaad u soo qaadaa ama xusuusisaa isaga waqtiyadii quruxda badnaa ee aad isla soo qaadateen labadiina. sidan haddii aad samayso, wuxuu soo xusuusan doonaa baashaalkii iyo farxaddii aad soo wada qaadateen labadiina. waxayna taasi keeni doontaa inuu kaa fikiro adiga xitaa marka aad ka maqan tahay isaga. Number 4. ka tag isagoo ku xiiseynayo adiga. noqo qofka ku hormar macsalaamada. ka waran lacala haddii uu gacaliyahaaga markasta ku macsalaameeyo adigoo raba inaad waqti fiican la qaadato isaga. maskaxdaada wuu ku jiri doonaa. marka xigta ee uu kula soo hadlana xaggiisa waad u carari doontaa. si la mid ah samee adigana sidaas oo kale. waa intaas. I hope inaad ka hesheen muuqaalkan. haddii aad ka heshay like muuqaalka. haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir, subscribe saaro channelkeena. insha Allah til muuqaalkeena xiga waxaan idinku dhaafay. salaam.